Bismillahirrahmanirrahiim waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka ugu doorka roon ee channelka wararka Soomaalida. Kheyre oo xaalka ku xumaaday iyo shirka Beelaha Habargidir oo ka furmay magaalada Hobyo. Golaha wasiirada Somaliland oo soo saaray go'aano culus oo ka dhana dawladda Soomaaliya. Al-shabaab oo ka hor yimid hadal ka soo baxay madaxweyne Farmaajo una hanjabay ganacsatada Muqdisho. xukuumadda Soomaaliya oo dhaqaale ka raadinaysa arrimaha xajka ee sanadkan. madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo kulamo gargaara ka wada magaalada Dhuusamareeb iyo qodobo xasaasi ah oo ka soo baxay kulan uu la yeeshay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo Theresa May oo si kulul u weerartay madaxweynaha dalka Mareykanka. intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada wararka ugu doorka roon ee channelka wararka Soomaalida. markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan. daawada haddii aad ku cusub tahay channelka waxaad saartaa subscribe qaybta hoose ee channelkana waxaad inoogu reebtaa aragtidaada. golaha wasiirada maamulka Somaliland ayaa kulan aan caadi ahayn waxay ku yeesheen magaalada Hargeysa waxaana kulanka shir gudoominaya madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi waxaana looga hadlay xiisada siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee Somaliland kala dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya. golaha ayaa si weyn u cambaareeyay weeraro ay sheegeen inay dawladda Soomaaliya ku hayso Somaliland kuwaas oo ay ku carqaladeynayso dhaqaalaha Somaliland waxaana sidaas lagu sheegay war murtiyeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada Somaliland kadib kulankii ay yeesheen golaha wasiirada Somaliland. kulan aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha wasiirada kuna yeesheen magaalada Hargeysa oo uu shir gudoominaya madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinaya madaxweyne ku-xigeenka maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici ayaa lagu gorfeeyay weerarka siyaasadeed iyo midka dhaqaale ee maamulka Somaliland uu ku hayo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay shirka golaha wasiirada ee Somaliland. waxa ugu dambeysay dacwadii iyo dagaalkii ay u galeen sidii aanay xoolaha Somaliland u dhoofi lahayn taas oo ay marqaati cad u tahay caalamka sidoo kalena ay tahay mid lagu dhibaateynayo dhaqaalaha Somaliland balse dadaal dheer oo ay Somaliland u gashay waxaa la sii deeyay markabkii siday xoolaha ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Somaliland. golaha wasiirada Somaliland waxa uu cambaareynaya weerarada joogtada ah ee maamulka dawladda xamar uu ku hayo Somaliland taasoo muujinaysa cadaawad aan gambashada lahayn ee shacabka Somaliland loo hayo ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay kulankii degdeg ah oo ay golaha wasiirada Somaliland ku yeesheen magaalada Hargeysa. waxaa marnaba qarsooneen isor istaagii bareerka ahaa ee maamulka Muqdisho uu ku sameeyay Somaliland gaar ahaan xoolihii loo dhoofiyo dalka Sacuudiga ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Somaliland. maamulka Somaliland ayaa mahad ballaaran iyo hambalyo u jeediyay dawladda boqortooyada Sacuudi Carabiya taas oo ku saabsaneyd go'aankii ay dib u fasaxday markabkii siday ariga ee ku wajahnaa dalka Sacuudiga kana tagay dekedda Berbera ee Somaliland. ugu dambeyn golaha wasiirada Somaliland ayaa warbixin ka dhageystay qaar ka mid ah wasiirada maamulkaasi gaar ahaan wasiirada kale ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda maaliyadda ee maamulka Somaliland. waxaa magaalada Hobyo ee gobolka Mudug ka furmay shir ay halkaasi ku yeelanayaan waxgaradka iyo siyaasiyiinta Beelaha Habargidir ee dega deegaanada Galmudug. shirka oo ahaa mid horey loo sii iclaamiyay ayaa waxaa ka qayb galaya siyaasiyiin odayaal dhaqameedyo dhalinyaro iyo waxgaradka Beelaha Habargidir. shirka ayaa waxaa isugu yimaada Beelaha Habargidir ee dega deegaanada Galmudug waxaana la filayaa in laga soo saaro qodobo xasaasi ah oo ku saabsan mustaqbalka Galmudug. ammaanka magaalo xeebeedka ee Hobyo ayaa aad loo adkeeyay waxaana markii ugu horeysay shirkaasi ka qayb galaya xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo siyaasiyiin caan ah oo mucaarad ku ah dawladda federaalka ee Soomaaliya. shirka ayaa marka uu soo idlaado waxaa la filayaa in qodobo xasaasi ah laga soo saaro waxaana shirkan uu caqabad ku yahay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre maadaama ra'iisul wasaaraha uu ku dhawaaqay shir dib u heshiisiin in gogashiisu ay taalo magaalada Dhuusamareeb. sidoo kale qodobada ka soo baxa shirkan ayaa la filayaa inay caqabad ku noqdaan safarka ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre uu ku joogo magaalada Dhuusamareeb.
dagaalamayaasha al-shabaab ayaa diiday in dib u dhis lagu sameeyo goobo ganacsi oo ay weerareen bishii Maarso ee sanadkan 2019 kuwaas oo ku yaala wadada Maka al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. qoraal lala wadaagay milkiilayaasha hoteeladan ayaa loogu dalbaday in aan dib u dhis loogu sameyn karin goobahaas ganacsi oo ku burburay weerarkii ay al-shabaab ka fuliyeen hoteeladaasi ku yaala magaalada Muqdisho, gaar ahaan wadada Maka al-Mukarrama. al-shabaab ayaa ku sheegay in goobahaasi ganacsi ay qayb ka yihiin goobaha dadka lagu fasahaadiyo iyo goobo kale oo lagu gorfeeyo siyaasadda dalka, sidaas darteedna aysan dooneyn in dib u dhis loogu sameeyo. al-shabaab ayaa sidoo kale waxay sheegeen in goobahaas ay degan yihiin dad mas'uuliyiin ah oo ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya. kaliya mid ka mid ah hoteeladaas ayaa dhismihiisa socdaa, waxaana inta kale la sheegay in la joojiyay oo loo hoggaansamay amarka ka soo baxay al-shabaab. al-shabaab ayaa sidoo kale sheegay in dhismaha goobahani ganacsi ay ka qayb qaadanayso dowladda federaalk ee Soomaaliya, haddii la dhisana ay sheegeen inay dili doonaan dhammaan shaqaalaha iyo maamulka hoteeladan, maadaama dowladda federaalk ee Soomaaliya ay bixinayso lacagaha ku baxaya dhismaha hoteeladaas ay weerareen bilo ka hor. wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegtay in sanadkan fiisaha xajka lagu bixin doono qaab elektaroonig ah, halka sanadihii hore dalka dibaddiisa loo qaadi jiray. wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa sheegay in xafiiska wasaaradda lagu daabici doono fiisaha, taas oo uu sheegay inay dabooli doonto baahiyo fara badan oo ku saabsanaa arrimaha xajka, sidoo kalena laga maarmi doono in dalka dibaddiisa loo qaado baasboorada xujayda Soomaaliyeed. Sheekh Nuur Maxamed Xasan, wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya, ayaa sheegay in sanadkan arrimaha xajka dowladda federaalk ee Soomaaliya ay aad uga shaqeysay, isla markaana wax badan uu kaga duwan yahay sanadihii hore. sidoo kale wasiirku waxa uu tilmaamay in la mideeyo dhammaan qiimaha xujayda Soomaaliyeed ay ku aadi doonaan sanadkan xajka. wasiirka ayaa xusay in wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda Soomaaliya ay ka warhayn doonto xaaladda xujayda Soomaaliyeed ee sanadkan aadaya dalka Sacuudiga, isla markaana loo dhameystiri doono dhammaan adeegyada ay u baahan yihiin inta ay ku sugan yihiin dalka Sacuudiga. magaalada Kigali ee dalka Rwanda ayaa waxaa kulan ku yeeshay guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya iyo guddiga maaliyadda ee baarlamaanka dalka Rwanda. guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ayaa warbixin la xiriirta xasuuqii ka dhacay dalka Rwanda sanadkii 1994 waxay ka dhageysteen dhigooda dalkaasi qaabkii loo xaliyay iyo sidii ay ku koobneed dhibaatadii dhacday. guddiga maaliyadda ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ayaa dhankooda waxay warbixin ka siiyeen qaabka shaqo ee golayaasha sharci dejinta ee labada gole ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya iyo sidoo kale shaqooyinka guddiga maaliyadda ee golaha shacabka. gabagabada kulanka waxaa lagu balamay in la xoojiyo xiriirka iyo wada shaqeynta golayaasha baarlamaanka labada dowladood ee Rwanda iyo Soomaaliya, iyo sidii Soomaaliya looga taageeri lahaa arrimo fara badan oo ku saabsan dhanka khibradda iyo taageeridda dhismayaasha hay-adaha dowladeed ee dalka, maadaama Soomaaliya ay ka soo kabanayso burbur iyo dagaal sokeeye, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay kulanka wadajirka oo ay ku yeesheen magaalada Kigali. ugu dambeyn, ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa cambaareysay hadalka madaxweynaha dalka Mareykanka ee Donald Trump uu haweenka ka jira aqalka Koongareeska ugu gafay oo uu ku tilmaamay inaysan ahayn cadeen, kuna tilmaamay inay dib u laabtaan. ra'iisul wasaaraha Britain ee xilka ka sii degaysa ayaa hadalka Trump ku tilmaamtay mid aan la aqbali karin, iyadoo sheegtay in aysan suuragal ahayn in loo gafo haweenka siyaasadda ku jira. madaxweyne Trump waxa uu yiri haweenka asal ahaan ka soo jeeda wadamo baaba'ay oo ay dowlado aysan ka jirin waa inay dib u laabtaan. Theresa May ayaa sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka waxay ku tilmaamtay mid cunsuri ah oo aan diyaar u ahayn inuu horumariyo arrimaha dimuqraadiyadda. guud ahaan daawadayaal, halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen janalka wararka Soomaalida. daawada haddii aad ku cusub tahay janalka waxaad saartaa subscribe qaybta hoose ee janalka, waxaad inoogu reebtaa aragtidaada. sidoo kale daawade waxaad furataa gambaleelka si ay kugu soo dhacaan wararkii ugu dambeeyay